waxaana wanaagsan asxaabteeda qaliba markale barnaamijyadeena Microsoft Office-ka maanta waxaan tusayaa barnaamij aad u anfacaya ardayda kaasoo ah markay assignment ama research loo soo dhigo ardayda table of contents-ka markay is diyaarinayaan inay kala kulmaan dhibaato aad u fara badan oo ah sinaanta laymanka ay ku diyaarinayaan markay qiyaasayaan pages-ka ku jira research-ga dhexdiisa. Markaas iminka tusaale markaad aad qoraysaan waa inaad shift iyo minuska intaad isku qabataan saa u jiidaan saasaa samaysaan haddaan filayo iminka page-ka koowaad page-ka labaad marka leedihiin saasaa samaysaan sida caadiga ah. Markaas taas waqti badan ayay naga qaadanaysaa. Qaabka sahlan ayaan halkan idin tusaya markaas la socdo wanaagsan. Waxaad samaynaysaan marka hore sidan aad u wada dooranaysaan dhammaan. Marka sidaad u wada doorataan home-ka tegaysaan halkaa baad tegaysaan halkaa calaamada fallaadha kala jeedo waxaa la yidhahdaa paragraph spacing baa la yidhahdaa. Markaas line paragraph spacing baa la yidhahdaa. Markaas halkaas aad imaanaysaan. Iminka tusaale markaa xitaa aad kala fogeynaysaan ama isku dhaweynaysaan waa ka aad u isticmaashaan. Iminka tusaale 1.5 baa badanaa casharada lagu diyaaraya markaad wax diyaarinaysaan 1.5 kaas aad isticmaalaysaan adeegsanaysaan saas uu kala fogfogeynaya. Markaas anigu ujeedadaydu maaha inaan kuwan idin tuso kuwan waxaan islahayn wadadeeda inaan hore idin soo tuso ama se aan idin sii bayaamiyon baan rabay. Markaas line-kan aan u socdo halkaas weeyaan line spacing kaas ayaa la taabanaya. Line spacing markaad taabataan kadib click ayaad leedihiin. Markaas waxaad odhanaysaan halkaas ay ku qoran tahay tabs ayaad imanaysaan. Tabs ayaad click leedihiin. Tabs haddii wax ku qoran yihiin waad iska masaxaysaan ka hore clear baad leedihiin. Badanaa markaad ku cusubtihiin wax hore kuma qorra oo qof hore maadaama soo isticmaalin way bannaan tahay halkan. Halkan line-ka dhererkiisa intuu la egyahay idinkaa dooranaya. Idinkaa ku adjust garaynayo ku toosisanayo line-kiina hadba sida aad u rabtiin. Markaas anigu 4 baan ka dhiganaya tusaale 4 baan ka dhigaya. Halkanna waxa weeyaan dhibic ama dot iyo la sijiitimahaas iyo la under space-ka midkaad doonaysid afartan ayaad ka dhigan karaysaa. Marka tusaale haddaan 4kan under space-ka aan ka dhigto ama underscore-ka aan ka dhigto click baan leenahay. Kadib okay ayaan leenahay. Okay markaan dhahna kadib dhanka bidix ee laptopkeena ama base computerkeena caadiga waxaan ka arkaynaa laba fallaadhood oo kala jeeda meel yar ku qoran tahay tab halkay ku qoran tahay iyaad markaad sidaa u hor yimatiin tabka aad click leedihiin. Markaad mid walba sidaa u hor yimatiin tabka aad click leedihiin. Iminka page-ka koowaad 1 2 oh sorry 2 halkan aan 2 gelinaynaa. Halkan aan imanaynaa tabkaan click leenahay. Wuu noo jiidaya systemka noo jiidaya tab isagaa saas noogu jiiday. Markaas sidaas adiguna markaa kolba nambarkaaga adigoo ka eeganaya paragraafkaaga halkuu yaalay ayaa sidan usoo dhigdhiganaysa. Hoos baad usii degaysaa waxaad doonta ku qoranaysaa iminka. Haddaan idhaahdo tab aan idhaahdo wuu ii jiidaya tab isagaa jiiday tab isagaa ii jiiday. Haddaan iminka intaan wax ku qoray iminka hadaad kolba wax ku qortiin kolba waxbaad iskaga qoraysaan tab haddaad tirahdin saasaad u wadan karaysaan tab 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 isagaa kuu jiidaya kolba qoraalka xagga horead kaga qoraysaan laakiinse waxaa dooni ku qor line-kan xagga dambe wuu sinaanayaa wax dheeraad oo uu hore usii waday ma jira. Iminka tusaalaha haddii aan idhaahno cabduraxmaan haddaan ku qoraba tusaale line-kan xaggan unbuu soo jiidaya maahane kaas horey uma waday oo ma kala sarraysiinay line-kaas ma kala horraysiinay. Marka asxaabteeda qali inaa fahamteen baan u malaynayaa. Haddeed waxa idinka fahmin uu jiro aad halkan waad iga weydiin karaysaan. Aad iyo aad baan idin salaamay goor walba goor walba aad joogtaan khayr iyo wanaag ayaan idin rajaynayaa dhammaantiin asxaabay.